danjiraha u fadhiya Soomaaliya dalkani Qatar mudane Cabdirasaaq Faarax Cali ayaa uga tacsiiyay qaranka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed geeridii naxdinta lahayd ee ku timid duqii magaalada Muqdisho ahaana gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Yariiso sidoo kale safiirka ayaa TV-ga Universal uga warbixiyay qaliimadii iyo marxaladihii kala duwanaa uu soo maray intuusan dhiman ka hor haddaba safiirku arrinkaasi tabaxayana wuxuu yiri بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون maantay oo khamiis ah 1 bisha August saacadu markay ahayd 3:40 daqiiqo waxaa ku geeriyooday isbitaalka la yiraahdo Xamed Hospital gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqa magaalada Engineer Yariiso Ilaahay ha u naxariisto gudoomiyaha waxaa la keenay dalka Qatar maalinkii ay bishu ahayd 26 July maalinkii 27ka wuxuu galay qaliin caloosha ah waxaa laga soo saaray 2 firir oo caloosha kaga jiray aad bay ugu guuleysteen siday warbixinta nagu siiyeen dhakhaatiirta kadib waxaa la galay in lala tacaalo 2 firir oo madaxa kaga jiray oo waliba qaybta hore iyo qaybta dambe ee madaxa laba dhinac ka kala galay kuna dhawaan maskaxda aad bay dhakhaatiirtu arintaas maaragtay ay u saareen MRI iyo CT scan waxay aad uga shakiyeen in la qali karo iyo in kale markii dambe shir bay nala galeen aniga iyo qoyska injineerka waxayna noo sheegeen in aan la taaban karin labadaas firir ee maskaxda dusheeda saaran haddii la isku dayana in ay khatar keeni karto haddii la daayana ay khatar keeni karto sidaa daraaddeed inaan marka hore balla tacaalno inaan asaga soo celinno oo uu ka soo noqdo koomada ka soo noqdo oo inuu iskiis u neefsado aan isku dayno taasaan ku dadaalaynaa ka bacdi baan go'aan kala qaadanaynaa 4 maalmood ama maalinkii shanaad ayay maaragtay waxay noo sheegeen xalayto xilli dambe waliba oo kowdii hameennimo ah in organadii gudoomiyuhu ay aad u soo daciifahayaan ayna siiyeen saboortigu ugu weynaa ama kaalmadii ugu weyneyd ee mishiinadana ay maaragtay siiyeen walina organadii maaragtay ay shaqayn la yihiin xaaladuna ay khatar tahay waa xalay saqdii dhexe ka bacdi saakay waxay yiraahdeen xoogaa caadi buu ku soo noqday galinkii dambe maantay xilligii qadada ka bacdi ayaan aniga iyo qoyska marxuumka Allah u naxariistee ka soo rawaxnay isbitaalka qaybtii uu kaga jiray guriga markaan nimid ayaga hotelkan geeyay guriga markaan imid baa lay soo wacay waxa la yiri wadnihii waa istaagay mana shaqaynayo daqiiqad kastana maaragtay naftu waa ka bixi kartaa si degdeg ah u imo intaan la bisanayba telefoon bay igu soo celiyeen waxay ii sheegeen in maaragtay ilaahay uu oofsaday ilaahay ha u naxariisto gudoomiyaha aad bay ula dadaaleen dawladda Qatar khayr Allah siiyo diyaarad bay u direen caafimaad oo asaga iyo bukaankii la socdayba 12 uu ku jiraan keenay wali waa lala tacaalayaa hal nin baa dhaawac nooga dhintay intoodii kale hal nin baa kaga haray qaybta gargaarka degdega ah ama ICU-ga la yiraahdo intoodii kale waxa loo wareejiyay qaybaha kale isbitaalka oo bukaan jiifka caadiga ah ninka ku haray asagana oo la yiraahdo Gabose wuxuu insha Allah taala maalinka sabtida ayaan u wareejin doonaa bay yiraahdeen ayagana qaybta chiefka caadiga ah marka ilaahay ha u booqday ayagana gudoomiyihiina Allah u naxariisto waanu tacsiideynayna qoyskii uu ka geeriyooday iyo ummadda Soomaaliyeedba waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo asagana waxaan ugu ducaynaynaa marxuumka ilaahay inuu jannadii ka waraabiyo una naxariisto gacan ka xaq daran baa dishay waa dhintay annaguna maaragtay waa dhimanaynaa waa ka daba tagaynaa kuwa ka horeeyayna waa dhinteen muhiimadda waxa weeye in uu maaragtay xaq ku dhintay asaga oo waajibkiisa qarannimo gudanaya ugu dambeyn safiirku waxaan wax ka weydiiyay goorta iyo goobta lagu aasi doono halyeegii ka baxay ummadda Soomaaliyeed wuxuuna safiirku igu jawaabay sida tan haddii ilaahay idmo maalinka sabtida waxaa loo qaadi doonaa marxuumka magaalada Muqdisho diyaarad khaas ah ayaa lagu qaadi doonaa waxaana ku wehelin doona diyaaradda aniga iyo qoyskiisii oo dhan oo ka kooban 13 qof waxaan tagi doonaa Muqdisho insha Allah sida ay ii sheegeen madaxda sare ee qarankuna isla maalinka sabtida ayaa maaragtay loo sameyn doonaa duuq qaran oo lagu aasi doonaa magaalada Muqdisho haddii Ilaahay idmo
geeridii gudoomiyihii gobolka Banaadir ayaa gilgishay quluubta ummadda Soomaaliyeed. Ismaaciil Doos, TV caalamiga Universal TV magaalada Doha.